السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني أنو ما قد درهي تذكيرية ضدك ما أنت إنك رسوا قيب قلي أو محمد إبراهيم الهدراوي أجني كذا قيبتي هريتين لي لنا آل تصادلي هل وحية سكتا عشر جامع وينا هاي قبل كلا هيدا قمر هو قيب كشيء سين ليدي محمد حاشد لما تعريه بكر موسى iyo Abdi Alan Qais kolka intii nan waxa kala gelin hadii la yiraahdo bal Abu Bakar qaybtii hore ee siinleyda hay noo soo koobo ama tafaariish qaybtii hore barnaamijkan aan ka soo waranay duruuftii markaan ku xirnayd intii ka horeysay urashadii siinleyda iyo wixii waayii markaa joogay waxaan leeyahay xukunkii rayidka markii uu dhacay Soomaaliya ee afgambi military uu ka dhacay waxa jirtay ahayd caamahaan dadka ay qabeen in ay ka sugaan bal wixii kolka hore baaqday taliskii hore ka baaqday in rajo weyn ay ku qabaan militariga xukunka qabsaday in ay ka jawaabaan layaana wixii boog ah ee ummadda Soomaaliyeed markaas ay tabanaysay taasi waxa ay dhalisay in calaamado yar oo muujinaya dad shakhsi ahaan ama aqoon in dargarata oo ogaaday ama calaamado yar oo muujinaya oo u bilbila dadka qaarkood oo u muuqda in wixii ay rajo qabeen aynan waxba ka jirin waxbana ka soo cadeyn aynan waxba ka soo socon ay muujinayaan oo ninkii markaa arki karo oo arkay taasi waxa kamid ahaa ama marakacay markii ay soo baxeen heesaha adduunyo iyo aakhiro oo runahan ka turjumayay in walwalka dadkaasi ay qabeen in adduunyada tani ay salahayn hadii ayna jirin wax nololaha qofku haybsado oo wax in wadankiisii uu ku qabo oo dan iyo hadayna jirin ama baad rajo ah oo ka sugay nolosha ayna jirin taasi qiimaha heesahaas markaas ay yeesheen abdi markaa ujeedadii kasoo doona hawlahaade qiimihii markaa dadku siiyay yaa muujinay in wax tabasho ay jirtay baan la dhigay kore iyadoo waqtigaasina ay jireen in markii militariga xukunka ay qabsadeen tiqadii iyo Afrikada ay ku heleen adduunyaha intiisa kale ay ku heleen ay ka dhaadhiciyeen sawir run ahaantii markaasi cid walba u joogsan karay ay ka bixiyeen Soomaaliya taasi oo mararka qaarkood keeni jirtay in looba arkaba halishada ugu horo kacsan Soomaalida gudaheeda qofkii la qabto la yiraahdo muxuu dadka intiisa kala dheer yahay kani muu dadka rajada la qabo la socdo waxa taasi ay keentay in waxay soo guurtaba in la isweydiiyo su'aasha dadku maadaama ay tabayaan waxyaabaha qaarkood dadku maadaama ay rabaan in dhagahoogu inuu ku dhaco suugaantii faraha badnayd ee kacaanka maalinta oo dhan ka warramaysay wax ka duwan inuu maqlo taasi ayaan ahayd wixii keentay in heesaha qaarkood kuwii Abdi uu sameeyey iyo kuwii abwaanintan kale ay sameeyeen in ay qiimo gaar ah u yeeshaan oo dadku ay dhagaha ku cushaan oo ilaahin wax ka duwan baan maqlaynaa heesii October ka hadlay ama kacaanka ka hadlay wax ka duwan baa meesha soo baxay waxay soo wareegtay waxaan idin kolka hore waxa dhacday in maadaama ay halkaas kala taagan yihiin amuurtaasi ayaa waxa dhacday in heesii Abdi Utiriye mid kamid ah gaar ahaan aakhiro Maxamed Ibraahim Hadraawi ka jawaabo oo 2 sano ka bacdi ka jawaabo isagoo sheegay markii hore in wax allaala wax sabab ah oo 2 sano uu ka sugayay jirin ugana jawaabay ayna jirin hasoo wareegto waxa dhacday hadana in markii 27 ay ahayd riwaayad ay sameeyeen Maxamed Ibraahim Hadraawi oo ay wareejiyeen يجاري يبوني فربضان وكله معلمين إيو لبن درجات أو بدن أو مركزي أقانيو أو أفجرد هيد إن الصومالي ولا كسور رجيان الصومالي ولا مركز كسور رجيان واحد عليه إن يجو مرة يمرهن سكوا وقويجا إن أجلد يسير قاركم إذا يكجران إن يهسي أخو جواب في هيد الرحمن وعبد آدم قيس ومركز يسبو إن أوران من اللاجب هاي لكن فرحة
firxadahaan halkan u joogay in ay soo gaadhay waxaa markaasi cabdi isagoo og in aakhiro jawaabteedii araxmaan hees dadku ay ugu magac dareen uu maxamed ibraahim hadraawi uu tiriyey dareemayna in haddii heestaasi laga jawaabo ay noqonayso sheekadu sheeko soo daba go-an oo isla markaaba joogsanaysa waxa uu damcay in ujeedada meesha ku jirtana ay tahay in waayaha markaa jooga in laga hadlo la cabiro wixii jiray raggana ay doonayaan inay maansadan tarbeebta ah ku kaftamaan oo ay kaga wada hadlaanna wixii markaa jiray cabdi isagoo fahamsan iyo ogaan iskaga qaatay hees kaloo hees kala heesaha ka mid ah waxaanay ahayd waan soo socdaa kowdhe kolkaasuu yidhi cabdi ha soo soconle ii kaadi waxaan halkaa markii aan marayno waxaan nidhahayd waxaan ka soo hadalnay qaybihii fara badnaa ee ciddii soo gashay ninba sidii ugu qaatay waxaana iminkana nasiib wanaaga barnaamijkan nala fadhida caasha diyaariye jaamac diyaariye oo ah qofkii haween ahaa ee keliya ee ka qayb qaadataa siinleydaasi hore aan ka soo hadalnay waxaana aan jeclahay bal caasha inaan weydiiyo su-aasha caasha sidii adig kugu dhalatay fikradda ah inaad ka qayb qaadato wax ma ka haysaase maansadii aad kaga qayb gashay siinleyda nooga waran bal sidii ay kugu dhalatay inaad ka qayb qaadato siduu kusoo galay buu cabiray waxay iigu dhalatay maxay tahay aan u qaatay markaan dhageystay maaragtay siinleyda iyo doodihii raggu isu celinayay ya meesha waxaan arkay kaalintii dumarku inay ka maqan tahay haddana de wixii muuqday baan ka hadlay oo meeshii wixii lagu hadlayay waana garanayay leelahay maan bugisiiya markaasi un baan ka hadlay adigoo jabuuti aad soo baxay anigoo jabuuti ahaa oo xarlaa wasaasa caasha ay adooga ku jooga waxaa tiri iminka ilaa imaan bisiye waxay kaalintii haweenka ayaa meesha ka maqnay waa run kaalin meesha ku jirtay weeyaan laakiin haddaba waxaa jirtay in duruuftii markaa joogtana waan fahmay baati dadkan waxa ay ka warrameen ninba sidii wuxuu fahmay ma marka qaarkood waxaa dhacaysa in la ismaandaafaba adu soo fahamtay marka sidaan u fahmay midhahaad ka garan doontaa iyagoo kuu tilmaami midhaha sheegi doona ya kii horreysay waxay ahayd waxaan u geeyey maxay tahay qolada kan maxamed ibraahim hadraawi iyo saciid saalax xabar baanaan ugu geeyey siday ahayd malabo idiin sharax waxaan xusuustaa markii taa ay ta hore jirisay asalba ku soo duubtay waxaan xusuustaa weliba way ku luuqaynaysay oo cod aada u yaab badan oo qurux badan runtii ayay ku soo duubtay marka waxaan jeclaan lahaa si kulliba hadday jirinayso bal haddayna luuqdiina ayaa ka xeelan lahay luuqdi maanta ma raacinayo laakiin midhahuunba wax idinka sheegaya ma ka raayo maanta meel intaasoo dad hay fadhidan soo fadhiisto waliba maanta ay ugu horeysaa marka waxa ugu horeeyey sacda gabaysama ina adeer maqal su-aashayda sanadaba waran qarinayaan kuu sarsarayaaye sida sagalka ruuxaad usoo kugu sureeraya seedaha midaad kaga jirto sugay jaceylkaagu sanbabada iyo seedhaha midaad saakin ku ahaatay oo tahay sirtay qarin lahayd sababta sheegaysa oo adiga kuu soomanoo samartaya joogta suldaanka alle kugu dhaaray iyo suubanowmadee adoon sirin fuqeeyo runtii suriya caatoonna sabaaladii adigoon ku dayin beenku samartiisa sidaad odhan lahayd ee cadday sida adigoon sheegin marka waxaad noqotay gabadhii aa sheegayay halkan ku arkay anoo hadalka saameelay oo saad u tigi dhaaday ma sokeeyo dumarku anoo kula sifaynaya waxaan haysanaysaa artiyo saxarladaadee soo socosinaba ha u maqnaan waa ku sugayaaye soo soco jecelweysitaa mana sii dayne min siray inii seeka dhigay min sabaaleeyey soo soco aan kuu kala suge siday soo gaadhay sayga igi dhoofow intaa waan ku sugayaaye saddexdaad baqaaqdaa rugtii layska saanyadeeye sidkii waxaa lagu lisaa dhulaan u soorayna wax sidkaday niman kugu sumaynigana soorayne sabigii yaraa wuu ka qaday saakasay tahaye soo soco sinaba ha u maqnaan waa ku sugayaaye saankii la ii diray markuu sooba noqon waaye
وشول بتقول بدس الله عايو أو صادية عن دورة العدد مرسول شيء أو صادية عن دورة ويا بدل صامت مرم بسيارة عايز سمان غنى ساعدها يبها يوم كسوقياه أنا قلنا إلهي ينسوه وخدق الدوانو حدوث السحر وشاك سحر طحنا هذا اللي صاصه سحر لا ورثات لي هدي السبح في السوق قاعدوا سمعهم قلنا واحد وقام وعد بصار كيه يوعد فيها عن صورانيه صينوا لها النهاية انت هم بان انت تقرنا كان كيجي odayga ahaa halka ka hadlay taxaruma oo meelti ka soo baxday oo tii waana ku sugayay imisa anna waana tagale aashinagu ma garanaysaa goolka inaga dhalisay waxa weey wixii nin kale oo dhan jiifta wada isticmaal gabaygi rag loo yaqaanay waxay noqotay in saxaradii xasan lahayn anigu saxarada ka waxay dalkani joogtaa sawirku ayay hiriyo jacayl iska jira laakiin ujeedadu runtii iyo sidoo waxa dadka jacayl ma aha waa tan marka si fiican u cadaatay inay watani tahay oo iyadoo Djibouti ama afkii Djibouti ka dhaysa ay leedahay maartay Soomaaliya ay leedahay yani صحيح السنة وما كان هذه كذا ما يجمع ما كان كذا أي هالحربان أنا أقول عنها يا أي لا لا واحد قصدي إن عبدي و لا أنت مين كذا أنا قلت حصل علم شاكري وتري إبراهيم يدي ويكلم حاله إنه بيجوا كل رمل جريانة ما كيلو يكون قطع مرة واحد تعبد هذا روح عن كذا الله هيد إن وحنا نلاقي ومالنتي ورثة dadkii siinay ka qayb galay ay soo fariistaan oo runaantii si laba looga sheego hadda gaariga ilaahay wallahi mararka qaadko bandhig kareey maanu qaatay oo markaygo ma ka galay dad buuro daacad buu hadlo xil waxaan ka fahmay marka ahaan ma jirin laakiin in nin walba xubbo boreys ka kicin bandhig kareey la sameeyay bal muddo dhankaygo ma ka galay laakiin waxa jirtay inaad hees kareysay ninkan aad soo qabatay bal qofada looga sheekay maxay ahayd maxaa ku weyn malaha qasay iraash waxaan u dhigay waxaan mareynaa qayba wartigiisa ka horeeyo balada waayahay waan ku horeynayaa waxa weeye horta sidaa la sheegay waxay ahayd wax waliba taariikh kastaaba waxay leedahay suugaanteeda sheekadeeda ma garanaysaa waayaheega wixii wada bay wada leedahay waxa weeyaan maanta kasta si xawlasiya waxay leedahay meel iyo milay ama aynu nidhaahno goob iyo goor bay leedahay halkaas goobtii goortay ahayd Soomaaliya isla xaqiiqda waqtiguna halkaas uu ahaa meeshuna ahayd wadanka Soomaaliya leeyla waxayna ahayd waqtiga 70kii 72kii ilaa 73kii koga anagu aniyo Maxamed Xaashi Damaci iyo horta deeynanu meelaha iska yaray nidaam mooyaane hal soo caan baxday oo ma garanaysaa deesidiini ma garanaysaa dadku dhageystaan wadama aan tirin karin ilaa imkaan ku dheedo anigu xagga taariikhda waxa taan yara jecel oo حاجة سجانة ترين كذا بيجي يك شقيق كذا كلام جعله سلا حقيقة لكن كصواب سنسوق كواحد هاي فرطوان من واحد هاي وأروح على الله يروح على كسب محلي حاجات شو تبرك أنا هالجيش أنجوزها فقالوا حواليا هذيك بيجي دادي كين oo qoladii kale fanaaniinta ee magaraysa suugaanta la wareegtay riwaayadaha dhigeysayna aanan soo gelin kolkaas horta anaga dariiq dhexeeya noo baxay oo ay siin leeyahay noo saar waxayga ama macallimiinta ama magaranaysa ardayda la hore kolka ku jiray kolka anigu macallin baan shaqeynay kolka hargeysan joogay nin la yiraahdo Allah naxariistay Xuseen Maxamed Xaaji Umar waxaan loo jiray oo dagaaladii ku dhintay Buraaco ku dhintay سيدي سيدني أيام أقل ولا جليني وحنو يمد لقد وحنو عشرة من سوكاري فالقاس بيقول ورا ما قوي وانا عبها يسمع هذا اسمه تيندري فقد ما قال ورا ما وانا عبها وشو هذه باين تو الله ونحرسين تو قبل يشوفين عين خاصة يرى قريبا ما لها وذيك قبل يجيب هذا اللي قلت لي وقال له كفر بيجريبا وشو ورا ما قوي وانا عبها ما تكتب ذي أصلا وايه هو قال لي ورا قاطعه يا عضو صحيح وحسوها كجاتيو هاي بعد يسوها كجاتو محمد أوكي يمكن فاصلين كي وسنين جبده ها وغير قال لي حاجات نقصني يا هم النزول ثانية حرقة يا هم النزول
hargeysa noogu yimid kolkaasaan deetana anuga sheekayno wuxuu wallahi waa iska magaranaysaa way iska meel maraysaa bahasha soo diro adigu dee kolkaa intaan u teebgariyaan dib ugu diray kolkaa adigu sidaasay kusoo baxay markii aad gelaysay markaa adigu sideed u faahin anigu sidaan u fahmay oon soo wadaa waxa weeye horta werwer baa jiray waxaa jiray oon anigu ka yaraa diidanaa maansooyinkii kolkaa la tirinayaba quus baa ku yari jirtay waxaa jirtay heestii aad tirisay ee ahayd ma garanaysaa adigaaba gabadhii hay gabeesay iyo timahoo gege laga bulshay iyo guur feeranayay miyuu weelgayahanay gooday maanta jooga geeri wey cadhi sutun laysa gaajadu nimaad garabka saartay miyuu geesinoy kolka waxa weeyaan maanso wada quusa ayaynu horta berigaa tirin jirtay waxaa jirtay kolkaa adduunya xelkaadba ku dheeday quus yar baa ku jirtay aakhirada ku dheeday ku dar maansooyin fara badan werwerkii ayaa socday kolka tan waan soo socdaa kowdada isdhihi baa dhinac kaga jiray saxaafada halkan kaga jawaabayay oo waxay ahayd ma garanaysaa مثلا بيبقى سوف على كل واحد في الصراحة كل شيء كده عرضنا يا سوحة سوي سو مقوى على ساتشا سهوا على الدورة هساوين هسللين سركدبا هنقولين هسلوب قيدها قال بعض صحيحين waxaan saafirku qorin ha u soo dhabaanay intaas marka la isiraado qiimeeya waxa weeyaan sida uu ridaashu sheegayo waxay tilmaamaysaa qoysay tilmaamaysaa dadku inaanu kaalintiisa qaadan leeyahay qof walba wixiisa loo qoray oo halkiisa ku sugo ka fadhiyo ayay tilmaamaysaa marka heestiisa uu tirin doono anigii cabdiqays mid walba waxbuu ku diidanaa oo laba aanu kala leenahay buu isna warkayaa meel inay dhaliil ku leedahay cabdiqays leeyahay midaan anigu leeyahayna inay dhaliil leedahay runtii oo ay quustaas maaragtay inaan waxba la qabsan layska sugo wax kuu qoran waa wax iska qadiran weeyaan marka gaariguna hore waaba ka marakacay waxaan malaa raggii waqtigaa joogay sida maanta loo korreeyay wax laga yaabaa loo wada korranay laakiin anigu madmadaaban dee idhaahdaa maaragtay mala marka loo eego macalihii waqtigaa tasiilada waqtigaa kuwa ugu korran buu ku jiray matalan taari raasho matalan la xusuusto uu leeyahay sida isaga heesiisa ku jira oo uu leeyahay surmigiya abaaraha taa waxaan weliga jeclayna ka horraysiiyo waxa la yidhi shabaan hore dadku waa sinaan jiri waxa saad la keenana qofna saayid inuu helo uma sacaba tumanayo surmigiya abaaraha innagaa samayne xagga sare kamay iman intaa ma yidhi dabeedna aniga wuxuu igu yidhi sahankii barbaa yimid saad sheegtay nagu diid wuu saluugay qaybaha qaranka iyo saxeexa hadda waa haysay soo maaha يعني إن أسلوب قيدها قلب صحيح أنا أيوه يسوي حليه هاي مثلا أنا مسلم أهل سرقه أيوه يسوي كذا حليه هاي يعني أقلت واحد شيء الساعة أقلت واحد لا هاي فمعها كانت بني آدم كم معها إن مثلا هيك بقول ماركتي وهل كيس كسبه أما نورشي سامي كأوكها أي واحد قرن صحيح ويسجع عن واجب لبس وينه يسكفر ديو ما أهم عليه عيون بمعيون في ذلك فأنت أكون بعد الجولة sheekadii intii dambe maxamed daaba dhameeyey marka waxa weeyaan cabdiqays naftiisa sida xaqiiqda waxay ahayd waxaad tidhi gabadhii way samir liidataa soorarkii hortaada iyo sacabkaaga taala sidna ugu wanaagsan waxba sugi maayeen kolkaa waxa weeye halkii soomaalida dhinacii kalumaan ka eego qof samir darani dee dhaqankeeni maaha yani waxa weeyaan waynu caynaa qofka wixiisoo dhanna ku soo koobo wixii hortiisa yaalana isna ka daran kolkaa iyadana halkaas kumaan ka egay sidaan uga egay halkanba maaragtay iska qaadashada kolkaa deetana inta hore dee wayba iska sheekadu wayba iska soo dhan tahay laakiin dee intaa yara hore labadiina waxa weeye saxarbaan arko waxay tidhi saaxiib adaa garan guddidaysa socday nimba sawka dhiibtay ragga siinka culiye nimba sawka dhiibtay waxaa siin sanaan guud safka wada khiyaartaa kulka xiga sidaan ahay sadarkayga mariyo usug waxaan ku noolaa sida qaar u sheegeen salfudayda maan dhalan adiga yidhi waan inta sababteena
صورتي ان صفقة صفقة ما دارن أنت سويت ما أنين سمت لي دشنا داني ما يصور قاطع واسع قاطع يستومالي ويدي فكان ما بين كلا نقول لي إني ما يصير صور قاطع وأنا ما يصير قاطع فكان mana oran sabool nacay waxaan nisad quuleediyo soo nacay reer subaxaan ku dhaafsan saddex magac ilaahay soddon horaan ka joogtay waxa weeyaan sabool waa nicay kooda baatirin kolkaan waxaan u qaatay kolkaan inaad leedahay anigu dee dadkan faqiiriinta ah iyo xoolaha ya masaakiin anigu lama tusi karo sabab garan kolkaan waxaa waardeed qof sabool nacay waa saboolnimo laguma naco wax kala jira qofka lagu naco kolka waxaan saddex magaalo ilaahay soddon horaan ka joogsaday sabadii Djibouti ninka sare aad sheegtayna ma saarin aragahay taasin meel karo kolka waxa laga wada hadlayna sida xaqiiqda Djibouti ma yahay waxa ay duwaayay halka joogay sheekadii riwaayada dad socotayna bay horta siyaasi ahaan lahayd kolka sidaan aad u dhigto qudheeda xaggaas aad ku celisay sheekada oo wadiga yiri 8 nabar oo qabaa waa taafii sagaala 8 sanadood hore ee rayta sagaalkana ku biiray kolka Allah ku naxariisto kolka taasina sidaas ay ahayd ninka soo socona waxa weyn wali waan ku sugayaa samirkiina ma gaban walow saymaan galay iga saar ilaahay saankii badbaadin sidaas keetiin lagu diidu saluga qaybaha qalinkiisa saxaabo wuxuu yiri samaan hore dadku sinaan jireen wax saboola ma lahayn inna saayiduna inta saar lakin inna saayiduna loo saabatumani surmigi awaaraha inaga sameeyna xagga sare kamayna ilaahay soo madajin waxa weeyaan dadku wuxuu soo tadawur baa ku dhacay dad tadawur huwa ka soo qayb galay meel bay soo gaarnay waxba inoo baranay dadku waxa weeyaan aqoontii iyo waxbarashadii waa inuu ka سناه قلتنا وقالوا إن مجهود من أجل القوسني يشكوا واحد قلنا إن شكوا في الحقيقة إنت ضبطنا إنت تعيد وحكى لي إستا مارك إستا لو جاي هذا يستيك الله شيء أنا حاجة دبي شو له هذا ساكي لويديا مركز ألقوا صورة ستة كاركا يسوي مكواتن دوي لقى ولا شكيني surmateegtadu markaa ma aha surmateegto uu keenayso ama uu leeyahay ee sheekada ayaa isagu wuxuu imaka waxa laga yaabaa hadii loo noqdo markaa xaqiiqada intan ka hadlay wax maya tawaraad ka bilaabantaa saxarla soo ka bilaabin oo soo horeyaan ku dhigaatay suuriqaati maani marka waxaaban laga hadla aan markaa anigu leeyahay ee horta tan u sheegay ilaan soortii qofka waxa la yiraahdaa koorika qado qofka si ka qado sax runbu kaan marka anigu leeyahay surma taagtadiisi waxay in marka waan leeyahay waxa weeye anigu sidaan marka u wato mirax qaarkood iyo sidii isagu uga jawaabayo si saxaayad la isku maayo waa ku qarax kala kaba soo qaadaan anigu kaan jiraa waa tu sheekada subulaha markaan anigu marayo isaguna haduu igala hadlo tii caadiga ahayd Soomaaliga ahayd ayaan leeyahay marka saxarlaan diidaya inuu yaa qofa مثلا de gabadhan baa baday iga badisay mooyaan wala daanigi baa saxarlaa ila waa gabadhay inuu yaa saxarli waxay jiri marka saxarlo waxa iska jawaabi kartaa xagana ku joogto xataa ma joogto waxaan diidaya in saxarlo qofkii arkaaba anu mudciigu yahay wallahi wixii saxarla arkaa anu mudciigu yahay baan qornaa oo waxay noqonaysaa inuu leeyahay saxarlaanka marka aniguna aan saxarlaanka nafti كان أفضل. ثم سيكتب مركا وقع. إستقى أركون هو شيء قاعد يراضو. ما يراضو أنت ثم سيكتب مركا. حاوية. ذات كم كتور شبابي. مرة دليلي شمتي سومالية بكرة كده عبد القيس. بتيجي تدبر ما بتيجي كل نقطة. أنا يقول ذات كم كتور شبابي بدون إنه كم وصل. أو هدول يقول حاسم. ولا كاسم فاهمين. كاسم وكرن. كاسم. أقول لك الله بيا سفلنا ومجرى حاجة من هذه كم بدنا نقدر كم قعدنا من ما حمد حاجة اللي أقول مشكلة عين كاس. مشكلة عين كاس. مستقبل وحنشغلها كان دمدي عشاء أي شيء كذا كذا. مستقبل عشاء هذه هرت هايسو تيجي دمدي ده حاجة خصوصي سو في شيء كذا كذا لكن المركب أوصل. في دمدي. نوع كاية. وايش. هو هاي. السلامات كياسين كيسورة ده هوا صفقة السلامات كياسين كيسورة ده هوا
safka degan la foolo dhano wada salaameeda waa lagu saameen hadii sagabtu ku taalwa saamiga midkii igu helaa saballa taalin waa aniguna sidaydu u dhantiin idi siyaarteewa sokeeyo samaalo waxna ugu samaysnawa sokeeyo samaalo waxna ugu samaysnawa sagaalota ida rafiya sabin barwaaqowa سامي محمد وابو هاتر وسمتر وهذا سوكرو بشيك دعليه وسحر لحال كده سرية أول اللغض ويسي مش الشيء صاحب أفرت أسد إنت كده صدر كلام بانا سومالي أنا وهو سجور ده يليني وسحر لما قاعد وياه صدر كلام بانا سحر لما قاعد وياه صدر كلام بانا سيفت نقول وحن ربع إن السماء سبعيدا لالارن قبا ولا سocotaaye cid saalax oo marag inkii tiriyay sooraay sabtana u xiro wiilashiina sareynay hana ka seexan hawlaan inta waasal diriraay afartaasada intaan ka dayay sadar kalaan baana aluusiman sabal ayrahiya sadaniyaalaay aluusiman niseetaysan iyo socota dheerooye aluusiman sadkiin mulmiyo sadaniyaalaay aluusiman jacaylimu tashiyo nin sugaayay فرتاسة إنت كده صدر كلام بانا سدحين تقول سمية صدر كلام بانا مدوا سدحيات هي السنة بقات كودا حديث سا مكتئين تقول سمية صدر كلام بانا حديث سا وصاوية لقلصوف على عذاب ويصير ربيعي عشا يسيب وفرد دوشه لمسي يوصل بيبتها الجميع يجي شغلية فجي سحر لفا اللي اسمك تاهد لاي أنا أقول اسمي سوريو وكلا سدويانه صار سبب معي بوقته وحن هذا القصة عماله فوضى السوكية رضا سمد ودابنايه يمكن الناس تفكين وصل النقضي اللي بنت سوريا سد حدا الحلال وشريه سنك كان جاتشة سديت هاي وفوقرة مرة ينيد الشيطانة سحن هو يدان ما يدا شيء وساكو كل شوقة وصل يما عنده وطقان صورنا كل قوسة سنة ولا الكوغ النقضي سنك كان جاتشة مدينة واسقالية صبنا تسقل دواب باغدي مدينة واسلدنا قيلي وهي سبكو دشور راعدا أفر تاسد إن كان كده ينسد الكلام بانا نفدي سحر لوان كلنا يدي الصبح لوان قاري سنة وما أركنا ويلش إنه وستسو ليلين صور بانا هي بأرسل سقبل شيطانة صور بانا هي بأرسل سقبل شيطانة صار معي بابته وحن هذا القصة ماله يمكن سحر لواء بين صبح وطهورة سعد لنا كي يسمى يسديهان هذا سيئي كي يقدر وفاقه وعنا بدا عشان والله ما نكره يلي لو تعلمك هذا هو اللي بعد هذا يجي وده هيسين يرموا يعني انت اللي كلم حدود كل يوم بقى على قبل انه حتى تحلمت فيه بالله انا هو نسوق سكر انا ارخي لكن يبقى اقول انا ارجع بس حاجات يا من ايضا ارى مرتان حاسره مرتان waxaan نقول انت واحد راعي لها كبدو وقتها waxay keenay waliba gabayadu ma dhamee waa laga soo qaadanaya xoogay waxay keentay ajaladii ay heeb maasadu ku duubneed waa koow waxay keentay waan bahaya si aan qaadanahay sidii midna ana ka soo sajisay sidii baan ayaa imka baashi subaaciyada si uu ku qabsan sidii wahaya subaaciyada ay keentay baashi subaaciyada bay hore gabdhaha uga jireen waxay ku soo tartay caalankii Soomaaliyeed ee xididka cad lahaa waxay ku soo tartay seef gal furaarada ku jirta kabaygana waa ku jirtay la jeestana guddoon waxa rabaa inaan samaanayo subaaciyada la laabo qabo way la socotaay maxay tixrij ku yimay saaminaya walba soo kala soorkana wuxuu dhaw ila sheeyna sareynaya ana ka seexan hawla nashada waa wixii alabtaasi markay timi dabeetana anagu waan qoray heestii inta ajalada ku duubneed waa la taabacay seefta tusha lagaga sawiray waxaan xusuustaa subax oo maalmaha ka mid ah anigoo gurigeedii jooga la foole ayaa waxaa ii yimi niman kuwii ilaalin jiray ama dareewalada u ahaa maxamed siyaad barre saddex nin
بدري ولويه لبنا عيدا كان العالية هي كمديهين فبدأوا على يقولي يروحوا مدحويه كويري مدحويه يروحوا كسويري على في تبوت اللي قاعد صوت رأي سودي and والدي بيالاتي على في السيفتي ولما سيفتي كنتي سيفتي ملو العقبة يا هيدو يعني ما رتاعدو قيمة له على كي يسبع يدي يسيفتي والدي بي ما دي مدحوين هي تلاقي كده مارس وحنو قاعدي إن معنى اللو سمعيه هسي عاشي مركاي تيمي يعني قرري سيفتي نكسا ورري ay suuqa gashay isaga warta loo geeyo waxa loo raayaa waxa la soo diray alaab caynkaas gabadhaas soo dirtay ragaas bay u soo dirtay waxay uga jeedaa iyagay taladii iyo xilkii ku wareejisay waladeega dawaasidii loo macleeyay iyagay ku wareejisay mas'uuliyadii soorka micnihiisu waxa weeyaan ku dila isaga ku dila ها يعني عجائب يعني حياة عجيب كده حاجة دمك ولا صباح شو صورك يصير كدلة على كيشنت الصومالية نواكا يديك أقلمة يديك هديلا يكذب السوق كرا وخبين كرا وكذا بدأ ترى شيء سيكون كلوه كي فقال له حاجة ليه هي واحدة لبست عشية مش وتكفر دراية الدنيا دي بقى هورة هي اللي هنتي ويسكو حدنا جبوتي رك جوجا دك جبوتي جوجا يدك هلك جوجا هو بقى أفتنك فبدأ بركة صباح الصوت ريا رجن ملاية بالحوين يحكوا صوتي بلابتي علابتي سيدي بعد صباح دي كل يوم مركز صباح داس علابتي دي وشي معي هاي مركز مالكي أحد أو أي سبت يودي حسين ومركز أنا اللي قبنا أيوه اللي قاضي يقص حليل اللي يجيني مركز يعني هستي ده يقع عاشي وكم بدها سببه هو وينا كل إذا عنك كل ده عنك يعني بيتها للسماوية من هي وحاسي لو كده وحكم ده السببي هو يعني حركة كده أصير هاي كده ما تقص غير اللي قلت دلوقتي لا لك لو رجع واي أبغى شيء عند سير لو بلا أنت أتعرف كم مرة سوار كذا يا أيوه أنا ما كان الجهاز الصور منه وفي جمال شو ده ولكن الشيء ذكر خايب علي من هل يدخل هاي من لا بدخل هاي نستدعي كل مرة عبد الرئيس أو بدنا كذا وإلى الشن أيوة وايو جوانين أمدنا لا تجعلنا ما نكره شو واتينا يكذبوا مار في أم بخليك تيجي إيه مدكتا هم سيء قعد سيء من حيث ورنا كتاج على ماي ما كان الشن إلى الشن بو عبد الرئيس كلها ولكن الشيء إلى سبب في كذا كذا ديدو إلى لا بعد كدوات من باك خايب علي waxay ahayd maaso aan siyaasad ka badnayn watanina uga soo banaan baxday waa tan la wada jidaysiinaya hestiisa ka helay wataniyad iyo shantii Soomaaliyeed iyo Jabuuti la xoreynayo ma jirto maaragtay gaari sidoo sheegay ma aanu ugu baa markii hore sheegay waxa weeyaan laakiin ujeedada lagu heshiisay war halkaas maanta aynu ka gabeeyay waa inoo halka ma jirin waa baa waanakii ka sheekeynay sida ku dhalatay iyo naba sidoo qaatay dabadeedna waa tani waliba markaa nin maaragtay meel bergera iyo nin jarka dhacay iyo nin soo qaatay sida idinka u joogteen xagga kaga yimid xagga yimaada ay bahashi ahayd laakiin ma oran karo marka uu meesha horta wax ka soo qaatay wax weeye waa dhinac baad ka arkayso warbasha wala soo Soomaali diganayaayo waliba aan ilaahdo anigu markaan heestan tiriyay mid kamid ah kuwii ugu dambeeyay loo ilaa tarrigo haddana saar ayaan xusuustaa waxa ku jira sidoo baa ku jira infact waxa weeyaan waa fursad wanaagsan inaan walaal laga yara faaloodo waa kan waxaan taydii saddexaad bay ahayd waxa ku jira tidciyo marka la oranayo bahasha waa la tuuraa Soomaali diganayeen ma xurba ma xambaarsan dadka qaar kood marka si cilmiga loo faalaynayo مثلا waxa ku jira كراسي سجال فوق صدق كين سيدات هو وحهارا يسوره مسوبا مسامبا صدح إيا شواكي فكلها هلغا قرو
laba furud ha lagu daro guriga sama ha lagu daro guriga sama ha lagu furo kow taasoo halkaa joogta haddana waxaa ku jira sabkax oo haddana seeman oo haddana sulan sidkan oo haddana sagan sahlan oo haddana sugan sal leh oo haddana sigan sillan oo haddana sugan subkan oo haddana sulan subkan oo haddana sulan ayaa ku jirta af soomaaligaygo lagu saari waayo wax sawaaba noqota maxaa ku sugan marka ereyada iska hor jeeda dhulkaasoo kale markaad gasho weeyaan matalan marka la leeyahay waa baasha waa uuna dilay ka dhigo maaragtay bombastic words erayo waaweyn oo culculus ayuunbay xabaarsanaydeen laakiin yani sida dee ay dadka qaar u arkeen xeeldheeri iyo mawduuc iyo itijaah iyo majaro toosan oo ay leeda lagu heshiis yahay muu jirin waa run dhinac oo waxay ahayd maantadii ugu horreysay ee maaragtay horta dhinacaas af soomaaliga yani af soomaaliga markay waxa weeye bahlu maansadu ma aha inay mawduuc hore kama jawaabayno waa inay intaas wax ka leedahay faa'iidada leed waxa weeyaan af soomaali fara badan oo hodan ah marka ujeedadaba laga yimaado af soomaali fara badan oo hodan ah ayay lahayd hal xidhaalaa ku wada jira hal xidhaaluhu qofka wuxuu weydiinaya adiga maxay kula tahay waxay maansadii ugu horreysay ee 100 iyo dhowr jir ilaa 8 jir kulmisay waxaa jaadan afqallo oo waqtigaa 1972 kulliba 112 meelaha ahaa ayaa raga ka soo qayb galay ugu weynaa ilaa 60 ama 70 sanadood deganayay iyo waxa xusayna leeyadu maxamed axmed oo markaa kuliyadda nala joogay oo anigu macallin u ahaa qoladii PP-da la oran jiray oo 18 jir ahaa ka qayb galay waa 18 jir ilaa 112 jir waa dhinac kow waxaan xusuustaa 4 nin oo weligood waxba odhan ayaa taa ku bilaabay oo maanta kaalin weyn maansooyinkoodu ay siin leyda ay ku leeyihiin waxaan xusuustaa inaan garaaci jiray siin leyda oo la fulan nala joogo way u dhintay maxamed saciid cismaan baa loo jiray maxamed weydaarna waa loo yaqiinay ayaa tii soo baxdaba loo dhiibi jiray oo loola jiray garaac dabadeedna markii uu 16 marayay ayuu subaxdii dambe iyo aniga hormada wuxuu yidhi anna tii 17aad baan tiriyey iga qabo xaqiiqo jirta ayay ahayd maanso wanaagsan oo cajiiba runtii aada u fiican ayay ahayd raggu istima af soomaali diganayd oo keliya haddii ilaahay ka dhigo maaragtay waxbaa la raadinay ama shan soomaaliyeed ha noqoto ama daliil ka jirta maamulka ha noqotee way ku dacaldidaysaa way saaran tahay waxqabashada way saaran tahay shanta soomaaliyeedna way saaran tahay oo maaragtay intaa kuma ay koobnayne su-aalahan baa yaa meesha yiilay iyagaa la isweydiinayay iyagaa qofka meel ka abaarayay waxay ahayd maanta kulmisay intaasoo dada ninba meel joogo aan maanta ku horow maanta ku kulmin isfar oqoon isqodob oqoon ayaa isku afbartay ayaa isku af soomaali bartay ayaa isku qodob bartay ayaa isku qiimeeyey oo nin waliba ninka kale dalhadda uu ku qiimeeyey wada hadlay ku kaftamay dadkii laga xidhay dhegtii macaanaydii iyo suugaantii dhadhan kale ahayd oo la yidhi uun kunka heesooda maalinta raadiyo muqdisho ka baxa kulligood inay mawduuc qura ka wada hadlaan fursadu siiyey dadka inay waxay ku madadaashaan oo ay rugrugutaan iyagu oo marba midab ka dhigaan oo marba magac u bixiyaan ayay dadkii fursadu siisay oo in lagu qayilo oo lagu murmo